السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أمد الإسلام كوحان إذنكو سلامي تحية الإسلام. بعد السلام صوماليي وحان جعلها ما أنت إن نسفي عن إذن برو صدر قعماد لها فرشحانيستها الصوماليات أمين عامر محمد إن تسفي عن أبرتان أمين عامر أنو إيقاد شيء أنو إلى شيء لكن ما أنتو حنجعلها أمين عامر وحو ياينا برتان أمين عامر أمد الصومالية وحي كو أغايين نين حقك هدله أمين عامر أمد الصومالية وحي كو أغايين نين دحدحادا أمين عامر وحو نغضي نين هنقوري رع إلهان إذن كل دار شيء أمين عامر دولته ودنك الصومالي فيريا شيخ شريف مركوهاي أركا سوء قلي مدحوين حسن شيخ محمود مركوهاي سوء قلي أركا عبد الله يوسف مركوهاي سوء قلي أركا وحق وهد لاي ووحول بؤ سميناي ما أنت مدحوين فرماجو إلهان إذن كل دار شيء iyo xukuumadda xasan cali khayre dambiga ay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan ay ka galayaan khaas ahaan dambiga beelaha banaadiriga iyo beelaha jareerweyn ay ka galayaan ilaahan idin ku dhaarshay Amiin Caamir oo hal mar ka soo hadlay maaragteen laakiin waxa kale iyaga isku haystaan maamul goboleedyada soo bahdilay arka wasiirada kii shaqada laga eriyo soo u bahdilaya arka dambiga cad oo laga galay gudoomiyaha degmada Xamarweyne Cumar Shariif Jeeg asagoo ka dhargan asagoo anaga telefoon aan u dirnay aan kala hadalnay aan waraaqiyo xataa u dirnay wuxuu yiri iska sabra sababta maxaa keenay Amiin Canada asagoo joogo mushaarkiis ku qaataa ko danta kale Amiin uu lahaa waxa waaye gabadhiisa uu abtiga u yahay Basma Caamir Jikeeti ayaa maamulka gobolka Banaadir arrimaha bulshada loo geeyay marka khalaas afkiya laga qabtay xaqi oo dhan Amiin wuxuu ka doortay shilinkaas Amiin sabir gacmeedyadiisa ilaahan idin ku dhashay madaxweyne farmaajo ka hor Amiin Caamir wuxuu ahaa number 1 Soomaali oo dhan wada fiirsata Soomaali oo dhan isku raacday inuu xaq ka hadlo laakiin Amiin Caamir wuxuu soo baxay 0 laakiin Amiino waxaan ku sheegaa usha walaalkaaga Cumar Shariif ku dhacday wallahi billahi bari gabadhaada Basma Caamir Jikeeti u yaalaa haddaadan xaq ka hadlin waxaa fiiri xataa ina uqdadaysantahay waxa ku cadeynay dawladii Cabdullaahi Yuusuf Meeyd ma xasuusto Caamir Jikeeti oo dhaawac la gaarsiiyay gurigiisa xabado loogu dhiftay sawir gacmeedka ka soo sawirtay oo aad dawladda dhan ku eedeynaysid ilaa iyo Caamir laga qaado dibadda la geeyay la soo daawiyay maxaa ku diiday gudoomiye Cumar Shariif xaq uu ku taagan yahay waa u jeedaa dambiga laga galay waa u jeedaa maxaa ku diiday hal daqiiqo taa inaan ka hadasho war lacagtan waa laga dhimanaa lacagtan waa laga tagaa Amiin Caamirow waarimaysidii war fiican ha ka haro kulley Soomaalida waxa tahay waa ku barati reer Banaadirna waa ku barteen hunguri raacina tahay iyo xil raadis inaad aad gabadhaadina xil lagu sii adigana mushaarkaaga Kanada lagu sii laakiin Soomaalida waa ku barati Amiin Caamirow mar dambe mar day Allah hadago laakiin mar labaad si anaga isdagnay reer Banaadir dambe iska dhaafay Soomaali weyn dambe Amiin Caamir amini mayso khaa'in baa tahay khaa'in alwatan baa tahay khaa'in alshacab baa tahay khaa'in alqowmiyadiisa tahay aqayanti laakiin maalinaad ka sharaynaysaa insha Allah taala Cumar Shariifna xaqu ku taagan yahay insha Allah xaqana u hiilinaya ka cabsanin Soomaaliyay Amiin Caamir barta Amiin Caamir waxaa la moodi nin daacad dhexdhexaad
dulmiga uu wado dulmiga fiiri waryaad jeylaani nuur iikar mar uu cumar shariif jeeg dembiga ka galay waad soo sawirtay maanta maxaa usoo sawir weysi maxaa kuu diidi maanta dhulalka la boobayo banaadir ay ku yaaliin maxaa kuu diidi maanta inaad ka hadasho marka mushaarka lagu siinayo way iyo gabadhaada oo meel lagu geey haddaa hadasho mushaarkana waa lagaa jaraa gabadhaadana shaqa waa laga eriyaa laakiin xaqa waa soo daahiraa insha allahu tacaala amiin caamirow soomaali waa ku baratay ogow